بروتوكولka soo dhaweynta Soomaalida aad ayuu wax badan ugu khaldan yahay. laakiin Lucy maxaa ku dhacay? Asad Xaaji walaalkiisa asagana sidaan ayaa ku dhacday. Totally waxaa khalad ahayd in la soo kiraysto rag Kenyaati ah si ay u sugaan ammaanka Asad Xaaji. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هاي مستر كلمتاني هدي تاي مركا كوهر يساعد نصاب بغطاء واتكم عسن تاي بغشد على كاستمر كيرودات تاينا واتكم عسن تاي لجوتان فضلا يوتيوب كسبسكرايب سعر سيني شرقاي فيسبوك قدعوا يسنا فلو يقصوده صاحب يال مانتو وحن كهالينا بروتوكولka soo dhaweynta Soomaalida aad ayuu wax badan ugu khaldan yahay. tusaale ahaan waxaan ognahay Asad Xaaji in lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho soo dhaweyntiisana buuq badan ay dhalisay dad badan dhibaato loo soo geystay. Soomaalida markii ay soo dhaweynayso madaxda si fiican oo qurux badan oo nidaamsan loo soo dhaweeyaa laakiin markii dhalinyarada caanka ah soo dhaweynay buuq iyo zaxmad iyo dhibaato badan ayaa lagu soo dhaweeyaa. videogan waa Asad Xaaji oo lagu soo dhaweeyay magaalada Nairobi dhibaatada ayaana ka dhacday. ragga hawshan agaasinkeeda lahaa waxaa ka mid ahaa ninkay dhahaan Lucy sidoo kale arrimaheena laakiin khalad badan ay sameeyeen waxay soo kireeyeen Kenyaati aan kala aqoonin ninka Asad Xaaji hawshiisa isku dubriday iyo shacabka la soo dhaweynayay. laakiin Lucy maxaa ku dhacay? arrimeena oo ka mid ahaa Asad Xaaji walaalkiisa asagana sidaan ayaa ku dhacday. totally waxaa khalad ahayd in la soo kiraysto rag Kenyaati ah si ay u sugaan ammaanka Asad Xaaji. Asad Xaaji markii la soo dhaweynay am Nairobi lagu soo dhaweynay waxa aad u qurux badnaan lahayd sidaan camal in loo soo dhaweeyo. dhalinyarada boqolkiiba 95 meesha soo aaday ama wax soo dhaweynayay gibigood ujeedkoodu wuxuu ahaa in ay video ka duubtaan laakiin khaladaadka meeshaas ka dhacay ama khaladaadka aadka u badan waxaa ka mid ah buuqan camal. gabadhan waxay ka mid tahay gabdhaha aadka u taageeray Asad Xaaji xitaa waxay isku daysay in gaariga hortiisa ay isku kufiso ama ay jiifato. laakiin waxay ka dheeftay in xoog loo sheegto oo ay muuqaalka ay rabto ay duuban weyso. meeshaan ku babaahanay inay masar nimankii yaa feeran noogu faaneenba xoogan oo lagu faanay warjarele urkusha ku caynaysan jaleeci jareer wax la soo kamay. sidoo kale khasaaraha gabadhan ka soo gaaray waxaa ka mid ah telefonkeeda iPhone-ka ahaa in uu ka jabo. halo Asad Xaaji taageeraha gabar kamid gabadhi giftiga ku keenays intay ku soo roori ay ku bixismay mobilkeeda u jeedaa iPhone 16 Pro Max waa day kartaa waa ka jabi. marka wanaagaas iyo sharafta telefoonka joog uma jeednaba wanaagaada iyo sharaftaan ku wadno hadinaan si sharaf leh lagu soo dhaweey waaya ka xunnay dhumalaano barbaleen. welcome to Nairobi kariib sana Nairobi kariib. haddii aan ra'yi ka dhiibto dadka wax soo dhaweynayo ujeedkooda ugu badan waa in ay video duubtaan. haddii ay tahay ujeedkooda in ay video duubtaan ninkana ay salaanta u saaraan waxaa qurux badan sidaan camal in loo soo dhaweeyo. program casaanka la sameeyo xariiqin cad oo aan la soo dhaafi karin la sameeyo taas oo fududeynayso in Asad Xaaji dadka soo dhaweynaya oo dhan uu soo salaamo oo gacanta soo mariyo. waxayna ku fududeynaysaa in video adiga u baahnayd aad duubato. sidoo kale waxay ku fududeynaysaa qofka aad taageeriisa tahay in aad si toos ah aad u salaanto oo waqtiga uu ku saamaxo. laakiin haddii meesha ay noqoto foodo iyo buuq iyo sawaxan iyo waxaa ya qofku ka xoog badan yahay video soo baxdayna duuban maysid qofkii la soo dhaweynay dhibaato ayaad u geysanaysaa adiga nafsadaadana dhibaato ay ku geysanaysaa. waa laga qurxoon yahay marka Soomaalida borotokolkeeda aad ayuu u khaldan yahay. Soomaaliya fadlan iska hagaajiya. waan ogeyn markii hadda ka hor magaalada Muqdisho lagu soo dhaweynayay sidoo kale buuqan iyo zaxmadan iyo waxaa nidaam daradan way ka dhacday. haddana maanta waxay ka dhacday magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. markasta oo dhalinyaro la soo dhaweynay dhibaatadan way dhacdaa
dad ayaa dhibaato loo geystaa teleefona lagu jajabiyaa kuwa badana khasaare badan ka soo gaara ninkii la soo dhaweeyay naftiisa xitaa uu isnaaca oo soo dhaweyntii waa uu naaca tan waxa ka fiican hadii sidaan dhibaatada la isku geysan in aad si dhuumasho la magaalada ku soo gashid asadna wuxuu isdhahay saaxiibada iyo asxaabtada Nairobi waqti la qaado laakiin dhibaato badan ay dhashay dad badan hantidooda ku waayay dad badan garaafuun lagu soo gaarsay kuwa badan xitaa waxa arkay oo si toos ah loogu soo istaagay dhalinyarada waxay u soo baxeen in ay meesha foodayaan ama dhalinyarada caanka ee baraha bulshada ay foodayaan hadda ninkan waxa lagu magacaabaa madaxweynaha TikTokerada ee Nairobi suxul ayaa lagu hayaa isagoo rabo in uu soo dhaweeyo Asad Xaajiyow marka gabagabadii waxaan leeyahay Soomaalida bartkolkeedii soo dhaweynta aad u saxdo sidaan waa si waxa waa shirbaadnimo ama qaab darra dhibaato badan ayaana ka soo gaarayso nafsadaada ama qofka aad soo dhaweyso nafsadiidii ama hantidiisa saaxiibayaalow nidaamkan wax ka bedela haddaad wax soo dhaweysaan sidaan quruxda badan ee roogga cas leh martida iyo karaamada leh wax u soo dhaweeya videogaasaan sariic asxaabtaada la wadaag haddii ay tahay markaa kugu horeyso aad isoo booqato waad ku maasantahay booqashadaada waxaan kaa rajeeyay in aad subscribe igu dhiirigeliso followna aad Facebook iga soo dhahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay Mr. Kilmatani